Takhaatiirtan Soomaaliyeed ayaa caalamka ku soo biiriyay cilmi iyo aqoon aadanaha wax u tara. Dr. Maxamed Cabdiraxmaan oo loo yaqaano Dr. Cajaa'ib waa aqoon-yahan iyo cilmi baaris Soomaaliyeed oo daawo dhaqameedka si fiican u yaqaano, wuxuuna ku guuleystay una suurta gashay inuu daawo u helo cudurka kansarka. Dr. Cajaa'ib ayaa in badan ku guda jiray cilmi baaristan oo guul weyn ka gaaray iyo dadaal dheeraad la soo maray. Dr. Cajaa'ib ayaa wareysi gaar ah la yeelanay oo inoo sheegay dadaalka iyo waqtigiisii ku bixiyay sidii ugu heli lahaa daawadan xalka u ah cudurka kansarka. Dr. Cajaa'ib ayaa faahfaahin ka bixiyay korotada faa'iidada ay u leedahay cudurka kansarka. inkastoo baryahan dambe kansarka aad looga cabanayo aad adduunka looga qeyranayo laakiin dawooyin badan aan u soo saarnay laakiin halkan waxaan maanta ma garanaysaa aan rabnay inaan uga faa'iideyno ummadda Soomaaliyeed bal iyagu si ula tacaali lahaayeen laftiisa kansarkii marka waxaan rabnaa inaan sheegno waxa ugu faa'iido badan oo idinku kaligiin aad samaysan kartiin waa kaarotada si loo sameeyo matalan marka qofkii iskaan la soo saaro dhaacana laga qaado oo ama histology loo sameeyo wixii la hubiyo wuxuu sameynayaa qofkaasi wuxuu bilaabayaa marka kaaroto wuxuu bilaabayaa 4 xabo oo dhexdhexaad subaxii 4 xabo oo dhexdhexaad galabtii hadduu qofku yahay kar waayo ayraayad uu u siidinayaa 4 xabo galabtii buu qaado subaxdii buu qaadanaya kadibna marka jidhkiisu soo fiicnaado uu galabtii ku daraya haddana qofka kalaya wuxuu sameynayaa 8 xabo subaxii ayuu isticmaalaya qof ilkiisu ka cuni karaya laakiin inta badan waxa fiican in lagu shiido mishiinka cabitaanka lagu shiido oo kale lagu shiido markaana uu sida qofku ka cabo la jarjaraya inta la yaryareeyo oo la nadiifiyo diirka laga dhilmaayo diirku waa loo baahan yahay dawada sida saliidda ku jirta kaarotada weeyaan meesha looga baahan yahay dawada marka diirkiisa wixiisiiba galaas biyo ku shubaya galaaskii cabitaanka wax lagu shiidayay kadibna wuu isoo yar ku shubaya markuu isku rid qosfiyan isku markamo ayuu cabaya marka taas waa mid dad iyaga laftooduna kala meeri karayo mishiinka kala meera kaarotada biyaha ka meera laftiisa isticmaal kara laakiin waa laga fiican yahay diirka weeyaan dawada wuxuu isticmaalayaa qofkaasi markaa ka soo qaad qof kasta oo Soomaaliya matalan marka meel kasta uu joogo adduunka isagoo marka lagu soo sheego marka oo la hubiyo kansarkii ayaa wax bilaabaya marka kaarotada wuxuu wadayaa 4 bilood ayuu soo wadayaa 8 xabo ayuu wadayaa 4 bilood kadib dib iskaan isu saaraya wuxuu eegayaa marka inta bararkii hore ee lagu sheegay ka go'day ayuu eegayaa si 4 bilood markuu soo eego haddana wuxuu isticmaalayaa 4 bilood oo kale ayuu isticmaalayaa 8 bilood marka ay tahay cilmi baaris sidii lagu sameeyay wuxuu soo saaraysaa kaarotadu markay kaliya tahay gidaarkii uu ka wada noqday oo jidhka isku sinmay oo marka aanu jirin wax la yiraahdo barar aanu jirin malignancy markaas uu meesha ka baxay oo wax barari jirin uu soo saaraya marka taas waa faa'iido aad u weyn maanta waad arkaysan sida magaranaysa kansarka dhibka weyn oo ummadda Soomaaliyeed uu hayo waliba si koonfurta Soomaaliya marka aad iyo aad waxa uu haboon runtii in ummadda la gaarsiiyo oo iyana isgaarsiiyaan faa'iidada ay kaarotadu ay leedahay in ay isgaarsiiyaan sidoo kale wuxuu inoo sheegay in ay xabagta faa'iido ay u leedahay cudurka kansarka waxa kaloo la raacin karaa matalan ka soo qaad baalka la yiraahdo xabagta cadaada oo iyadana inta la tumo malqacad galaas biyo oo la diiriyay lagu qasayo oo marka isla milmaan oo yar qabooban la cabayo subaxiina malqacad galabtiina malqacad iyaduna sidina taagaysa oo difaaca jidhka dhisaysa marka aad iyo aad ayay u faa'iido badan tahay waxyaalahaas iyagu inay markaa sameeyaan haddii qofkan qalin lagu wado haddii la rabo dhakhtar dawada in loo qaado oo dalka laga qaado haddii la rabo ma garanaysaa in chemotherapy ama chemical lagu shubo markasta waa inaan kaarotada iska wadaan adu kaarotada iska wado laakiin qofka isagu aaminsan oo si sax ah u aaminsan qalliinka iyo chemical kala waxa ka natiijo badan oo ka natiijo roon kaarotada waayo kaarotadu si degdeg ah way imanaysaa natiijadeedu 2 bilood kadib ayaa ayar bay u imanaysaa 2 bilood qofka markuu joogo si fiican wuxuu ka dareemayaa oo laga yaabo bararkii xoog lahaa inuu qarsoomo taa lafteeda haddii marka qofku kaarotada qaato dadka qaar waxa dhici karta in ay markaa ku timaado xanuun ay ku keento markaa taana waxa lala isticmaalayaa xanuun baabiye sal diclofenac oo kale ama tramadol oo kale marka saas ayaa aad iyo aad muhiim ah in ay dadka horta ay kula dagaalamaan Maxamed Jeelaani SBC Yemen Aadan